imise qofood oo Soomaali ah ayaa si rasmi ah uga mid ah kooxda Mansooniyadda. Ninkan waxa lagu magacaabaa DJ Subayr. Waa DJ-ga kaliya oo ka caansan fanaaniinta kana saameyn badan markii ay adduunka imaato. Ninkani hadda waa qofka tuhunka ugu badan lagu hayo, sidoo kalena lagu arkay calaamadihii ugu waaweynaa ee Mansooniyadda. Haddaba waxaan kula wadaagayaa astaamaha iyo cadaynta lagu arkay DJ Subayr, kuwaas oo laga soo dhex saaray sawirro uu galay, showyo uu qabtay iyo shirkadihiisa. Haddii aan si toos ah iskula fiirino, sawirkan waxa galay isaga DJ Subayr. Waxa uu bixinayaa oo gacmihiisa ku sameynaya mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee ay leeyihiin Mansooniyadda iyo kooxaha Illuminati-ga ah. Waana calaamada triangle-ka ama saddex geeska. Iyaga ayaan calaamadan iska leh oo ay gaar u tahay. Ninka sameynayana waa DJ Subayr. Sidoo kale fiiri sawiradan funaanadaha oo wato waxa ku buufsan, waxa ka muuqda wajigii shaydaanka. Sidoo kale waxa uu wataa funaanad ay ku sawiran yihiin dad isku sameynaya in ay shaydaan caabud yihiin oo wajigiisa kala samaysanaya. Kuma si dheeraanayno, intaas waa sawirada isaga oo sida shakhsiga u galay. Sawirkan isagana waxa laga qabtay meel uu u diyaarsaday inuu ku qabto show isaga oo DJ ka ahaa. muuqaalkii meesha ka soo baxay ama wajigeedu sidaan ayuu ahaa, oo waxa isdaba maraya calaamado iyo fallaaro cabsi leh oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan ama ay isku muujiyaan kooxahan aan ka hadlayno. DJ Subayr sidoo kale waxa uu leeyahay shirkad guryaha iibisa ama dhista oo lagu magacaabo Subayr Real Estate. Loogadeeduna waa midaan oo sidaan ay u taalaa. Waxa looga ahaan ugu saaran calaamadii saddex geeska oo haddii Google-ka la gelsho ay ku soo baxayso ayadoo aad u fara badan oo midaan la mid ah. Aad ayayna u fara badan yihiin sawirada laga qaaday isagoo sameynaya calaamadaha ay kooxahaasi caanka ku yihiin, sida calaamada geesaha shaydaanka, triangle-ka iyo kuwa kale oo badan oo uu sameeyo marka uu sawir galayo. Sidoo kale isaguna waxa jiray muuqaal laga duubay oo la weydiinayo maxaa laga wadaa calaamadaha noocaani ah, oo uu ku jawaabayo anigu ma ihinin hadal la gambada. Calaamadahana waxa isticmaala kooxaha Mansooniyiinta. Annagoo 8 qofood oo Soomaali ah ayaana ka mid nahay. muuqaalkaas waxa ka duubay qofkii arkay ninka lagu magacaabo Cabdulqaadir Boos oo Facebooker-ka ah. Haddaba markii la isku daro intaas oo astaamood iyo qiraalada isaga afkiisa laga hayo, go'aanku adiga dhankaaga ayuu jiraa. Ma waxaad aaminsan tahay ninkani waa uu ka mid yahay kooxahan, mise waxaad aaminsan tahay in uusan ka mid ahaan karin oo aysan macquul ahayn midaasi? Bal adigu qiimay waxa aad aragtay iyo waxa ka socda social media-ha iyo ninkan halka aad ku tirinayso. qaybta comment-ga ayaa noo ballan ah. waana mahadsantihiin.